بسم الله الرحمن الرحيم haddii la qadaro waxaan wadaagi doonaa sheeko yar oo aad u cajiib ah oo wax ku qaadasho leh qofka bini'aadamkana fikirkiisa iyo aragtidiisaba wax weyn ka bedeli karta awooddiisa shakhsiyadeedna ku abuuri karta inuu ku kalsoonaado si uu u sameeyo wax weyn oo isaguna dheebsado ummadduna ay kaga dayato waxaan daawaday barnaamij uu leeyahay Taariq Suweydaan oo xilli hore qabtay barnaamijka waxa la qisa waa fikra ana sheeko iyo nuxurkii lagala baxay inta badan Mareykanku dadka hodanka noqda ee guuleysta ee noloshooda meel iska soo saara waa la wareystaa si dadka kale ugu daydaan oo iyaguna ay nolol tan u dhiganto oo kale ay samaystaan ama ay uga badiyaanba nin milyaneer noqday baa lala yeelanayaa wareysi su'aasha la weydiiyey waxay ahayd maxaad waxaan oo hanti ah ku heshay wuxuu ku jawaabay laba shay oo keliya ayaan ku gaadhay waxaan oo hanti ah maxay kala yihiin wuxuu yidhi kow waan go'aansaday inaan noqdo milyaneer waan go'aansaday inuu qofku qaraar iyo go'aan yeeshaa waa wax weyn wariyihii baa ku yidhi kadibna wuxuu ugu celiyey waan go'aansaday inaan milyaneer noqdo waxa aad go'aamiseed hoosta ka xariiqdo waa qasab inaad gaadhaa laba waan isku dayey waan ku guuldaraystay haddana naf doonid badan oo igu jirtaa waxay igu tuqisay inaanan sii fadhiyin habaaska guuldarrada aan fikta guusha u dhaqaaqo mar labaad baan isku dayey mar saddexaad baan isku dayey mar afraad baan isku dayey mar toddobaad baan isku dayey markii sideedaad waxa ii suura gashay inaan waddadii guusha cagta saaro oo aan yeesho hantida maanta aan leeyahay sumcadda ii korodhay iyo maamuuskuna uu isoo gaadho sidaa awgeed mar kasta oo aad doonayso inaad shaqo qabato ha yaraato dhexdhexaad ha ahaato ha weynaato waa qasab in aad go'aan leedahay go'aan aanad ka labalabayn go'aan aan duruuf kasta oo kaa hor timaadaa kaa leexin keliya waa inay guushu ahaataa mid u muuqata indhahaaga si aad guul u gaadhana waxaa muhiima inaad mar walba eegto midhaha guusha haddii aad caqabadaha iyo turunturooyinka guusha aad indhaha ku hayso waad nacaysaa waad isdhiganaysaa dabeeta guusha waxaad u ogolaanaysaa inay cid kale gaadho laakiin marka aad eegto halka ugu dambaysa ee guusha haddaad arday tahay ood wax baranayso waxbarashada culays kugu tahay waanaad eegtaa halka ugu dambaysa adigoo dareyskii xidhan adigoo taagan maalintii qalinjebinta haddii aad ganacsado tahay oo aad maanta shaqo ganacsi bilaabayso waa inaad eegtaa marka u dambaysa ganacsigaagiioo guulaystay adiga oo hanti iyo hodana shaqo kasta oo aad markaa u dhaqaaqayso ha weynaato ha yaraato dhexdhexaad ha ahaatee mar walba bilow iyadoo guushana aad indhaha ku hayso aad baad u mahadsantihiin